degdega gaari u watay mid ka mid a nabadoonnada sida weyn looga yaqaano gobolka Sanaag ayaa lagu duqeeyay inta u dhaxaysa degmada Eelbuur iyo sidoo kaleeto Badhan. nabadoonkan oo lagu magacaabo nabadoon Cumar Cabdullaahi Cabdi Ibraahim isla markaana gayigaasi si weyn looga garan og yahay ayaa gaari u watay iyo weliba dad kaleba ay la saarnaayeen sida ay xogaha hordhace soo baxay ay sheegayaan lagu duqeeyay deegaankaasi 3 diyaaradood oo maalmihii la soo dhaafayba khalkhal weyn ku abuuray shacabka deegaankaasi degan ayaana la sheegay inay 3 gantaal ay ku dhufteen iyadoo mar ugu 2 kamid ah ay la waayeen midna ay kula jareen dhulka. haddaba sida ay wax u dhaceen iyo sidoo kaleeto dadka la tuunsan yahay in ay la socdeen nabadoonka ayaa soo qaadan doonaa iyo weliba xogaha dadka deegaankaasi ay sheegayaan iyo cabsi xoogan oo dadkaasi soo wajahday. waxaan dhinaca kaleeto mid iyo labo ka dul istaagi doonaa diyaaradahaasi ayay noqon karaan wadankee ayay noqon karaan maxayse yihiin diyaaradaha maalmihii lasoo dhaafayba sida istaba joogga ugu soo noqonaya deegaankaasi. suldaanku baa wuxuu la shaqaynayay kooxaha argagixisada maxaa laga raadsanayay sidee ayay ku dhacday in suldaan dhulkiisi joogo ama nabadoon dhulkiisi joogo diyaaraduhu ay ama goobba argagixisaduba aysan soo gaarinba ay diyaaradahani duqeynta ay ka fuliyaan. bal waan dul istaagi doonaa dhinaca haddii aynu eegnana jiidaha hore ee maamulka waqooyi bari iyo maamulka Somaliland ay isku horfadhiyaan dhaqaaqyo xoogan ayaa 24kii saac ee ugu dambeeyay ka dhacay iyadoo dhanka kalena ay soo baxayeen in maamulka Somaliland ay isku diyaarinayaan weerar ballaaran oo ay ku qaadaan saldhigyada iyo sidoo kale goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada maamulka waqooyi bari ee SSC Khaatumo la oran jiray. haddaba dhaqaaqyadaasi iyo xalayto oo naftirkeeda heegan buuxa la geliyay ciidamada waqooyi bari isla markaana weliba goobaha qaarkood dhawaaqa rasaasta laga maqlayay ayaan iyadana soo qaadan doonaa oo dul istaagi doonaa. dhinaca Puntland haddii aynu eegnana ciidamo aad u tiro badan ayaa maalmihii lasoo dhaafay tobabar ay usoo xidheen. mas-uuliyiinta halkaasi ka qudbeynaya ayaa ciidamada kula dardaarmayay inay sugaan xuduudaha maamulka Puntland 1998kii la sameeyey. waxaa Puntland ay si weyn uga soo horjeedaa maamulka waqooyi bari tan iyo intii aas-aaskiisaba la bilaabay ama dhisitaankiisaba dowladda federaalku ay bilowdayna mas-uuliyiinta maamulka Puntland waxay kusoo celcelinayaan in ay lama taabtaan tahay xuduudaha maamulka Puntland iyagoo dhanka kalena sheegaya weliba in maamul aan shuruudihii buuxinin isla markaana aan meelaan ku habboonayn ay dowladda federaalku ka samaynayso oo colaado ay halkaasi ka horinayso dowladda federaalka ay ku eedeynayaan. iyadana bal waan soo qaadan doonaa hadduu alla idmo. soo dhawaada idinkuna muuqaalka like saara aragtidana igula wadaaga qaybta commentiga. aan ku bilaabe arrin dhacdo aad iyo aad u argagax badan ayaa ka dhacday inta u dhaxaysa Eelbuur iyo sidoo kaleeto degmada Badhan. deegaanada labaduba gobolka Sanaag bay ka tirsan yihiin. dadka deganada waa la garanayaa wax argagixisaa oo aaggaas lagu yaqaanayna ma jirto. maalmihii lasoo dhaafay iyadoo sidaa ay too dhulka dhul amniga ay tahay diyaarado ayaa kor hahaabayay cabsi badan bay geliyeen dadka shacabka. tuulooyinka qaarkood oo hoos yimaada Eelbuur waxaa la sheegayaa inayba ka qaxeen dadkii shacabka oo ay ka carareen. diyaaradahan joog hoose ku socdeen maalmihii lasoo dhaafayba iyagoo joog hoose ku socda ayay waxa weeyay ku soo noqonayeen deegaankaas. ugu dambayna maanta ayay fuliyeen dhacdo aad iyo aad u argagax badan oo ilaa iyo hadda caddaynteeda aan lahayn micnaha aan soo caddaanin. gaari u watay mid ka mid a nabadoonnada deegaankaasi sida weyn looga yaqaano laguna magacaabo nabadoon Cumar Cabdullaahi Cabdi Ibraahim iyo weliba dad la socday tiradooda lama cayimin laakiin dad baa la socday baa oo ka baxay Eelbuur ayay diyaaradahaasi duqeeyeen. 3 gantaal bay ku gameen baa layidhi oo ay ku dhufteen. 2 way la waayeen midna way la heleen. mid bay ku dhufteen baa layidhi oo dhulka weliba ay kula jareen. dad deegaankaasi ka dhow way ku dhiiran waayeen gaariga inay imaadaan oo ay soo kor imaadaan oo bal ay baadhaan ay fiiriyaan. laakiin xogaha hordhace soo baxay waxay sheegayaan hal gantaalo weyn in lagu dhuftay oo gaari gebi ahaanba uu bas beelo baaba'ay oo meesha uu ku baaba'ay. tirada dhimatay lama oga laakiin waxaa la xaqiijiyay markuu gaarigaa baxayay nabadoonku inuu watay oo uu saarnaa dadna ay la socdeen. gaaritu magaalo ka baxay magaalo kale u socdana waa iska dareemi kartaan oo inta badan
soomaalidu way iscaawisaa oo way isqaadaa inay dad saarnaayeen markaa filo kolley natiijada rasmiga waa la ogaan doonaa eheladiisa oo ceelbuhu ka baxay iyo weliba kuwa baran ka soo baxayba waqti xaadirkan way kusii wajahaan waa suurtagal inta muuqaalkaan duubaynaba inay durba ay gaadhaan oo meeshii xog kale ay kasoo baxdo laakiin sida ay wax u dhacday waa sida gaadhigii uu watay nabadoonka ayaa gantaal lagu dhuftay diyaaradaana ku dhuftay maalmihii lasoo dhaafay deegaanka kusoo noqonayay diyaaradahan waxaa loo badinayaa kuwa imaaraadka inay yihiin imaaraadka dhinacan hadda somaliland oo kaliya meelaha dhaqdhaqaaqyada ay ka wado aan ka waday puntland dhaqdhaqaaqyada meelaha ay ka wado raalli ahaada diyaaradaha imaaraadka u badan howlaha ugu badanna iyagaa fuliya marka dabcan imaaraadka iyo maraykanka labada midkood baa hadda laga shakisan yahay in diyaaradaha ay yeelan doonaan balse waa la ogaan doonaa oo cidda iskale iyo cidda waxa weeye soo abaabushay falkanba waa la ogaan doonaa khasaarahana waan ogaan doonaayo iyadana dabcan iyadana way kala cadaan doontaa gaarigu gaari layra calaawi u ahaa sida la sheegay xogaa hordhaca ay sheegayaan gaariga waxaa iskale nabadoonkaasaa iskale isagaa watay baran buu ku wajahnaa waa nabadoon deegaankaas u dhashay lama garanayo weli lama cadaynin nabadoonku ma kooxaha argagixisadu nabadoon u ahaa oo micnaha wuxuu u ahaa mas-uul saru u ahaa oo xil badan buu hayay oo saasaa loo ugaadhsanayaa ma waxa weeye ma lagu khaldamay oo diyaaradahan wax kale baadi goobayeenoo waa lagu khaldamay ma qof la raadsanayaa gaariga nabadoonka la raacay oo calaamadi ku xidhan tahay oo marka calaamadaasaa la raacayay ilaa iyo hadda lama xaqiijinin laakiin waa dhacdo argagax badan oo aad iyo aad u foolxun waynu eegi doonaa wixii kasoo kordhee dhinacan jiidaha hore ee maamulka waqooyi bari iyo somaliland u dhexaysa maalmahan xiisado cusub baa kasoo cusboonaadeen oo kasoo kordheen dhaqdhaqaaqyaa la wadaa maamulka somalilandna waxayba ku dhawaaqeen inay maamul halkaa laga sameeyey iska daayo colaada dowladda federaalka ay hurinayso ay soo afjari doonaan ciidamo aad u tiro badan bay tababaro usoo xidheen iyagoo weliba iska kaashanaya maamulka puntland oo ay isku xidhan yihiin waxay wadaan qorsho meesha looga saarayo ama dagaal lagula gelayo maamulka waqooyi bari waxay si weyn labadaasi maamulba uga soo horjeedaan maamulkaasi waqooyi bari in la sameeyo oo maamulu halkaa kasoo baxay si weyn uga soo horjeedaan puntland iyadu waxay dhaqdhaqaaq ka wadaa gobolka sanaag oo waxay ku xarbinaysaa gobolka sanaag inaan loo soo gelin oo maamulkaas fadhigiisu u yahay laasacaanood aysan soo gelin ayay ku xarbinaysaa halka somalilandna laasacaanood iyo garowa agteedaba ay u socoto duulaan ay tahay xuduudahana waan soo xidhaynaa ay dheheen madaxda maamulka somaliland xalay oo ugu dambeysay siriga digniinta ciidamada la siiyo waxaa weeye weliba heegan buuxayntii ciidamadii la geliyaba meelaha qaarkoodna rasaas baaba laga maqlayay baa layidhi oo ciidanka maamulka waqooyi bari waxaa heegan buuxa loo geliyey kadib markii la arkay dhaqdhaqaaq iyo weeraro kusoo wajahan oo maamulka somaliland ay soo wadaan ayaa ciidanka la diyaariyey marka dhaqdhaqaaqyaha marka socda dagaal toosa weli ma bilaabanin balse mar walba xabaddu qoriga afkiisa way ka bixi kartaa maadaama maamulkaas waqooyi galbeed somaliland la yidhaahdo ay soo wadaan duulaan ay doonayaan in maamulkan ay kula dagaalamaan iyagoo weliba maxaabiis tiro badan ay kaga xidhan tahay magaalada laasacaanood oo ay doonayaan inay xoog kusoo furtaan sida ay sheegeen qaar ka mid a mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda cabdiraxmaan ciro dhinaca puntland naftirkeeda iyagu waxay wadaan dhaqdhaqaaqyo oo waxa ay aad weliba ugu xarbinayaan sidii ay dhul badan waxa weye aysan u fidi lahayn maamulka waqooyi bari oo dhul kale aysan uga fidi lahayn iyadoo dhanka kalena heshiis bay kula galeen maamulka somaliland in markaasi ay qaadaan tallaabo walba oo ay kaga hor imaanayaan oo ay ku ilaashanayaan dhulkooda waa si iyaga heshiisku ay la tahay si micnaheedu waxay tahay oo aad ay u diidan yihiin maamulka waqooyi bari ee halkaasi laga sameeyey oo ay u arkaan in cidhiidhi badan uu gelinayo islamarkaana uusan munaasab ahayn amaba uu ka hiiliyey oo markaasi uu hiiliyey dowladda federaalka oo awaamirtoodii uu filiyey maadaama deni iyo ay sayaan xasan sheekh maxamuud si kastoo noqotoba waynu eegi doonaa wixii kasoo kordhana muuqaaladeena dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa hadduu alla idmo